saaka barqadii abaarashantii ayaa qof naftiisa haliga ah isku qarxiyay maqaaxid laga cabo shaaha oo lagu magacaabo Suways Cafeteria taas oo ka soo horjeeda dabaqa Salaad Jeeri xaafadda Bardaale ee magaalada Baydhabo. Qaraxa ayaa sababay dhimasho 2 ruux ah halka 10 kaleetana ay ku dhaawacmeen sida uu RTN u xaqiijiyay mid ka mid ah howlwadeenada isbitaalka magaalada Baydhabo. abaarashan saamal raabto midaan diiray bukaano oo magaalada iyo dhaawacay qarax magaalada ku dhaawacmeen almost man diirtay tumiyo ku bukaan amal marka hal dhimadi isla maqtiil shay oo dhimadi dhaawacay ay doran hay madad dhaawacsanay marka bukaanada tumo kala isbitaal gudaha la gudbi xaaladdu shal doornay muuman xaalad shal doornaa ka jiray marka bukaanada kala wala basho qalliin galan waxaan kale ma boo meelaray waxa oo la tacaalada bukaanka oo ka jira koomada yalka bahnaanay mise ICU ka soo yalka bahnaanay hay still bukaanadaas may badanta ka hay'ad dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaad guud ahaan si la tacaala soo xaaladda la tacaalada ka jira bukaan kale dhammaday oo soo xaaladda si doornaaytay baxay iyo aramo oo meelaray madag la xiriireen marka intaas oo wixii baxay isbitaalkeena still bukaanada la tacaalahay xaaladda bulsho ee xaaladda uunta ilaa 3 qof oo xaaladda stable ah ay faylahayn wala yara la sameey laakiin bukaanada kale xaaladda ee doronto bulsho shoo jiraan bulsho waa jubniin qabaan marka wali ma la tacaalahay shaqaalaha caafimaadka dhaqaatiirta insha Allah. Maxamed Yaksir Jito, RTN TV, Baydhabo.